caruur dhibaatada kaliya ma ummadda Soomaaliyeed oo dhan haysato si xaq daran anagoo nool isticmaalay sharciyo xaq daran dalka Norway nabadgelyoonka aan u soo doonanay nagu soo bisay xabsiyo nagu gurtay lacag magdhow aan dhiibi karin nagu qortay qaarkeen maskaxiyan waaleeyeen qaarkeen maxay tahay irbada ku socdaan qaarkeen caruurtooda runtii aan la tusin oo ayadana xanuun kale ay tahay dadka qaarna la tuso waalidka Soomaaliyeed qaarkood xataa wadanka ay ka masaafireen caruurtooda joogan caruurteena diinta Christianka la baro waxyaalo aad u fara badan aniga teamkeena waxa codsanayna dalkeena inaan u laabano caruurteena nala siiyo dalka Soomaaliya aan u laabano teamkeena aniga baasaboorkoodana uma baahnin caruurteena kaliya hana siiyaan waa ku soo qaldanay inaan laabana u baahanahay maadaama dawlad fiican ay noo dhalatay mudan wasiir waxaan kaloo rabnaa inaan ogaano ingiriiska teamkeena kale oo jooga waraaqadii ay ku keeneen markii ay galayseen shirka ingiriiska wixii tirkoobka aan suubinay wali waan wadnaa qaarkii kaleeto waan ii soo dirnay oo waan siinay iyo teeda kale hooyada Soomaali markay booliska Norway soo weerarayso sidii argagax camal ay soo weerarta ama alqaacida inaan tahay maantay haddaan wadankayga masaxi wala dhaco runtii waan ka samri lahaa caruurtayda laakiin waxa uu ku taabay way ilmahayga noqonayaan cusuri oo aan rasiistayaal iga noqonayaan oo iskuulada laga cusuriyana la dhahay madoowaatihiin maxay wadankan iska malihiin noola baxa caruurtii iskuulada lagu leeyahay dawladda Norway inay qaadato oo kaliya caruurta ku filan tahay ma fiiriso mana daryeesho caruurta waxa loo geeyaa lesbian naag iyo nin isqabo waxa maxay diintiyo ka bedeshay marka mas'uul waxa ka ee dawladda Soomaaliya anaga waxaan u baahanahay wadankeena inaan gadaal ugu laabano animada galdoona u soo u nimid hooyooyinka Soomaaliyeed qaarkood maskaxiyan ma fiyo albaabaday taagan maanta ma la qaatay bir ma la qaatay kuwaya iskuulada ka qaadanay baanahaagii ka qaaday cid ku sheegaysa ma leh runta waxa ay tahay wadankeena u baahanahay inaan gadaal ugu laabano waxa iiga fiican maanta inaan dhinto oo xabad liigu dilo ama qarax iiga dhaco tan maskaxda ka daran ay nagu suubinayaan ay noo isticmaalayaan sida xaq daran leh waalid fiyo meesha ma joogo hooyo kasta way ilmeynaysaa aaba kasta taxniyaha looga istaaga ma amri karo jeeba taqaano xibada ku taqaano warkaaga cid dhageysayso male beenta ay aruurinayaan bas la dhageysanaya marka waxa u baahanahay dawladda Soomaaliya midaan mid la iska indhatiri karo ma waa mid bulshada Soomaaliyeed dhan haysato oo u baahan nabadgelyo biri markii cunuga laga cusuriyeeyo argagax uu ku biiraya alqaacid uu ku biiraya inuu noqdo maxay ay toy inuu wax qaxi waa cunuga la rafaadiyay markuu yar yahay oo dadku beeqmatay koob ay maxay toy dawladda Norway sanadka la soo dhaafay ilmihii ay qaateen baanka ay maxay tahay waxay soo bandhigeen inay maxay tahay xagga waxbarashada ama maskaxiyan ay ka liidato way ogyihiin dawladda wax ay ka qabanayaan male marka waxaan uga baahanahay dawladda Soomaaliya waxay dhici lahayd way dhaceen dadkan kaleeto oo safka ku jiro ama liistaa ku jiro inay badbaadiyaan kuwaas badbaado baan iyo hooyooyinka maskaxdooda waa caruurtooda in loo raadiyo waa mas'uul baa ka tihiin caruur maskax ma qabaan waalidka Soomaaliya hadday maskax qabin dawladda Soomaaliya inay u raadiso waa caruurtooda meel ay ku hubsato dawladana la xisaabtanto sida xaq daran ay nagu suubisay oo noo xasuuqday runtii aniga dawladdan waxa ay suubisay wax weyn waa ama dawladda la og ama vaanka waxa ay suubinayaan dawladda Norway madadgelyada doonka ay nasiiyeen waxa nooga dar dhibaatada hooyo kasta sariirtay ku ooyaysa hooyo kasta way ilmeynaysaa ilmeeyaa ka maqnaa aniga saddex example meel dabaalan tagay cunugtayda arkay yalla u laabtay sababta u laabtay xabsi haday u dhigto ayaan ay boolisalay waxa leeyahay wax qaldanayso bis cirbada la igu dhufana ama xabsi la taxaba waa qafii lidayso male ana u jeeda cunugtayda ka laabtay ma awoodin oo tago soo salaamo gabadhayda waa boolis garbadub baa lagu qabanaa boolis baa lagu wax marka dawladda Norway in la xisaabtantiin anaga waxaan muwaadiniin Soomaaliyeed muwaadiniin dibanaana teeda kale kuwa balaabanayna wadankeena u laabanayna Norway ma rabno nabadgelyo waaye lacag way ku siiya laakiin xasuuq baan ka jira caruurta bulcad badeeda ma jiro waxa waa bulcad caruur
burcad caruuraan bixiyay xandaabada ku dheertaa musuq maasuq ku dheer corruption ajire kule laakiin Norwayna corruption xun ka jira musuq maasuq xun oo buugi qalinka ka jiro salaamu calaykum